24 bisha Qamad sanadkii 2013 dhacday ee foosha xumeed ee loo geystay ciidanka gaashaandhigga waqooyiga Itoobiya ee kooxda TPLF ay gaadmada ay ku dishay saxar xandarada ay ku xasuuqday. dhacdadaasi ayaa ahayd mid murugo leh oo sababtayna dagaalka waqooyiga Itoobiya inuu si rasmi ah u bilaamo. haddaba dhacdadaasi iyadoo laga duulayo ayaa maanta oo ay tahay 24 bisha Qamad sanadka 2012 ayaa la xusuusanaya maalintaasi iyadoo halku dhiga looga dhigay marnaba ma ilaabayno. marnaba ma ilaawayno. dhacdadaasi naxdinta lahayd ayaa ahayd mid dhaawacyo kala duwan u soo geysatay ciidanka gaashaandhigga ee waqooyiga Itoobiya ee mar walba heeganka u ahaa inay naftooda iyo waliba በእርግጠኝነት መናገር የምችለው ነገር አለ። የኢትዮጵያ ወታደር ያለው ልብ ማንም የለውም። ይሄን ስላየሁት በደንብ እናገራለሁ። በቀን 25 30 35 40 ኪሎ ሜትር በእግሩ እየተጓዘ በእግሩ ታውቃላችሁ መቼም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አይከፈለውም። ጀግና ነው። ተራራን ይወጣል ይወርዳል፣ በዝናብ በፀሐይ ይጓዛል፣ ለሀገሩ ክብር ይሞታል። ለሀገሩ ክብር የሚሞት አስደማሚ ሴትና ወንድ ያሉት ሀገር ነው። ከማንም ጋር በሰላም ብንኖርም የኛ ዘመናዊ ትጥቅ ግን ልባችን ነው። ይሄ የማይታበል በተግባር የታየ ወደፊትም የሚታይ በታሪካችን የታየ ነገር ነው። አዲስ ነገር አይደለም። xoogooda dalkooda ugu horaan. dhacdadaasi ayaa ahayd dhacdo xanuun badan oo dhaawac badan u geysatay qaar ka mid ah ciidamada gaashaandhigga oo hadalkaasi ka hadlaya iyo xanuunkii ay lahayd dhacdadaasi. ሬሳቸውን ልብሳቸውን አውልቀው ራቁታቸውን ፀሐይ ላይ አሰጡ። inta ay meedadkoodii maryaha ka saareen ayay iyaga oo qaawan cadceedda u dhigeen. haadka iyo waraabaha ayaa cunay meydkoodii. waxay ka dul ciyaarayeen meydka ciidamada gaashaandhigga ee naftooda u horay dalkooda. ሬሳው ላይ ነው የጨፈሩት። wasiirka gaashaandhigga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaaliga Itoobiya ayaa sidoo kale ka hadlay dhacdadaasi iyadoo maanta munaasabadda lagu xusuusanayo 24kii Qamad dhacdadii ka dhacday sanad ka hor. dhacdadaasi ay ahayd mid xanuun badan oo muddo laga joogo imika 2 sanadood oo ay geysatay kooxda TPLF ay ahayd dhacdooyin murugo leh oo murugana ku reebay ciidanka gaashaandhigga iyo dhammaan shacabweynaha dalka Itoobiya. maalintaasi iyadoo la xusuusanayo ayaanu sheegay inay tahay maalintani maalin nacaybka iyo waliba xumaanta lagu ballaadhinayo ee balse ay tahay maalin lagu xasuusanayo oo taariikh ahaanna loo xasuusanayo dhacdadaasi foosha xumeed ee ka dhacday saldhigga iyo guutada ciidanka waqooyiga Itoobiya. madaxa xiriirka dadweynaha ee ciidanka gaashaandhigga ayaa sidoo kale ka hadlay in munaasabadani lagu xusi doono siyaabo kala duwan oo siyaabahaas kala duwan oo lagu xasuustay ay tahay in iyadoo lagu xasuusanayo ciidankii gaashaandhigga ee ku geeriyooday dhacdadaasi murugada lahayd ee loo geystay ee gaadmada ah ay ku dishay kooxda TPLF. dhacdadaasi murugada leh ayaana lagu xasuusanaya sanad walba bisha Qamad 24keeda oo maalintaasi ay tahay maalin aan la ilaaweynin. dhacdo murugalena ku reebtay dhammaan shacabweynaha dalka Itoobiya iyo ciidanka gaashaandhigga. waxaana si sheegaysaa warbixinta ka soo baxday ciidanka gaashaandhigga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaaliga Itoobiya afayeenka waaxda xiriirka arrimaha dadweynaha ee wasaaradda gaashaandhigga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaaliga Itoobiya Colonel Getnet Adana oo warbaahinta uga warramay arrintaasi ayaana sheegay in lagu diyaar garoobi doono siyaabo kala duwan oo lagu xusi doono maalintaasi sidii loo xusi lahaa iyadoo la xusanayo dhibaatooyinkii kala duwan ee loo geystay ciidanka gaashaandhigga ee waqooyiga Itoobiya. arrintaasi si loo xasuusto siyaabo kala duwan lagu xusanayo. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa oo ku sheegay in loo baahan yahay in maalintani aanay ahayn maalin nacaybka lagu ballaadhinayo balse ay tahay maalin weyn oo taariikhda lagu xasuusanayo dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday dalkani Itoobiya. ciidanka gaashaandhigga ee mar walbana heeganka u ah dalkooda iyo amnigooda iyo nabadgelyadooda inay ilaaliyaan.
haddaba dhacdadani ayaa ah mid wax weyn ku reebtay ciidanka gaashaandhigga. haddaba dhacdadani si loo xasuusto ayaa siyaabo kala duwan lagu xasuustay oo maanta oo dhan 10kii barqanimo laga bilaabo iyadoo la xasuusanayo siyaabo kala duwan looga xusay dalka oo dhan munaasabadda iyo maalintani naxdinta leh ee ciidanka gaashaandhigga dilka loogu geystay 24kii Diseembar sanadkii 2013. ጉልበታችን ብረት አልነበረም፣ ጉልበታችን ትጥቅ አልነበረም፣ ጉልበታችን ኢትዮጵያዊነት ነበር። እኛ ያለን አገራችን በክፉ የሚመለከታት እኛ ያለን ጥላሸት ሊቀባት የሚፈልግ ካለ በምን ታምር ሊታሰብ አይችልም። የግድ መጥፋት ይህ ኃይል አልጠፋ ኢትዮጵያ ሰላም አታገኝ ብቻ ሳይሆን ከጀርባው የሚጋልቡትን አርፎ አይቀመጡ። guud ahaan 24ka Diseembar sanadkii 2023 waa maalin taariikhi ah oo dhacdo weyn oo foolxun ay ka dhacday maantana siyaabo kala duwan ayaa lagu xusay. እናት አገር ታጋይሽ በባሩድ ተጠብሶ ጎበዝሽ በእርሳስ ጨሶ ጀግናሽ በፈንጂ ተቃጥሎ ፈንጂን በአድሙ ፈልፍሎ እናት አገር ደፋርሽ ጭንጫሽን ቧጦ ቆራጥሽ አለትሽን ግጦ ቁርጠኛሽ አፈርሽን ቅቦ ሐቀኛሽ ከአፈርሽ ተላትሞ የገዳይሽን ሞት አሰምቷል ድራሽ እሳትሽንም አልምቷል ድልሽን በአዝሙ አፋፍሟል። وهاجاج waxaan taas noogu dhamaaday barnaamijkii gaarka ahaa aan ku xasuusanaynay 24ka bisha Diseembar sanadkii 2013 dhacdadii ka dhacday waqooyiga Itoobiya ee sababtayna dagaalka Itoobiya ay la gashay kooxda TPLF. intaynu barnaamij kale oo lamida ku kulmi doono ka hor nabadgelyo. ሬሳቸውን ልብሳቸውን አውልቀው ራቁታቸውን ፀሐይ ላይ አሰጡ። inta ay meedadkoodii maryaha ka saareen ayay iyaga oo qaawan cadceedda u dhigeen. haadka iyo waraabaha ayaa cunay meedkoodii. waxay ka dul ciyaarayeen meydka ciidamada gaashaandhigga ee naftooda u horay dalkooda. ሬሳው ላይ ነው የጨፈሩት።